boqortooyada Cabbaasiyiintu waxay ahayd mid ka mid ah boqortooyooyinka ugu awoodda badnaa ee Islaamka. Waxay soo maamushay qaybo badan oo ka mid ah Aasiya, Yurub iyo Afrika qarniyadii dhexe ee miilaadiga. Cabbaasiyiintu waxay afgembi kula wareegeen xukunkii dowladda Umayyadeed waxayna caasimad u aqoonsadeen magaalada Baghdad, taasoo ka dhigeen xarun dhaqameed, siyaasadeed iyo mid diini ah. Boqortooyada Cabbaasiyiintu waxay xukumi jirtay dhul ballaaran oo ay ka mid yihiin Ciraaq oo ay ka samaysteen caasimadoodii Baghdad, Iiraan oo ay ka magaalada muhiimka ah Isfahaan, Suuriya oo ay haysteen caasimadeeda maanta ee Dimashq, Masar oo ay Qaahiro ugu caansanayd. Afrika waxay boqortooyadu ku fidsanayd qaybo ka mid ah Suudaan iyo Soomaaliya. Aasiyada dhaxana waxay ka tilowday Turkmenistan iyo Afghanistan. Yurubna waxay gaadhay qaybo ka mid ah Spain iyo Portugal. Cabbaasiyiintu waxay ahaayeen qabiil ka mid ahaa qabiiladii ku abtirsan jiray qabiilka Quraysheed, waxayna ka soo tafiirmeen ahlu beytka Nabiga sallallahu alayhi wasallam, taas oo ay ku kasbadeen taageerada dad badan oo ka mid ahaa mujtamaca muslimka ah. Cabbaasiyiintu waxay rug ka dhigteen Baghdad, taasoo ay ka dhigteen caasimada boqortooyadooda, waxayna noqotay xarun dhaqameed, siyaasadeed iyo xarun diimeed. Xilligii Cabbaasiyiinta waxaa jiray horumar weyn oo dhanka dhaqaalaha ah, sayniska, farshaxanka iyo suugaanta, waxaana la hooyey magaca xilligii dahabiga ee muslimiinta. Cabbaasiyiintu waxay si rasmi ah u soo afjarmeen markii ay Tataarku gacanta ku dhigeen magaaladii xarunta u ahayd ee Baghdad.